waxaan ku soo dhaweynaynaa muxaadaradii shanaad ee mu'tamarkeenna iyadoo muxaadaradaasi ciwaanka ay xambaarsan tahay uu yahay sharafta qofka mu'minka ah. waxaa soo jeedin doona fadiilatu sheekh maxamed rashaad ood wada garanaysaan, waxaan alla subxaanahu watacaala weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii maqla, ka faa'iidaysta, weeleeya, kuna waana qaata. sheekhana waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo fara falyatafadal mashkuuran. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، intaa ka dambow walaalaha rag iyo muslim rag iyo dumar meesha isugu yimid ee muslimiinta, assalaamu calaykum waraxmat ullah. salaamtaa ka bacdi islaamka, mawduucaan ka hadli doono oon ka soo qaadan doono nuqad ama xibno yaryar aan ka soo qaadi doona waa cizu lmu'min ama cizatu lmu'min. aayadaha soo arooray qur-aanka markaan gadaal u fiiriyey 111 aayadood ayaa cizu lmu'min soo qaaday. 111 aayadood oo qur-aanka ka mid. axaadiista aan soo qaaday ama asarhaada ama xadiid haadeena waxay noqonayaan 24 xadiis. waxaan doonayaa marka 111 aayadood iyo axaadiistaas kulligood markii lagu daro tacaariifta ay culamaa ulmuslimiin ka bixiyeen ma wada qaadi doono haddii alla yidhaahdo. marka sidaa darteeda qaar badan oo ka mid ah waa aan ka tegi doonaa, waan soo gaagaabin doonaa. qaar badanna xooga waan rakisi doonaa. kelimadda la yidhaahdo alciz luqa ahaanta markii la yidhaahdo ama loo noqdo waxay ka timid kelimadda la yidhaahdo cazaza ayay ka timid luqada xaggeeda. caza yacizu cizatan wa cizan, wuu qaalib noqday. marka meel kastaba ha ka timaadee kelimadda asalkeedu waxay tusinaysaa xoogga iyo adadkaanta iyo ka sarraynta ama ka qaalib noqoshada laga qaalib noqdo iyo qasbinta waxa la qasbiyo. calaa shiddatin wa quwatin wa galabatin wa qahrin, intaasoo dhan ayay kulmisaa. sida aada u tidhaahdid dhulkaani ardun cazaazun, sidaad u tidhaahdid oo kaleeto. ay sulbatun, dhulku markuu adag yahay waa cazaaz, waa sulbi baa la yidhaahdaa. hilibku markuu adag yahay oon la cuni karin ama adag yahay u baahan yahay in la jilciyana waxaa la yidhahdaa tacazaza alaxmu.
asalkeeda kelimadda marka meesha ka timid markii la fiiriyo casiiz alladii yaqharu walaa yuqhar waa qofka asaga wax qasbiya oon la qasbi karinin wey. ilaahay sidaasuu qur'aankiisa ku yiri wainahu lakitaabun casiiz suurata fusilat wainahu lakitaabun casiiz. in la gaaraa kitaabka way adag tahay, asagoo kale in la helaana waa adag tahay. macnihiisu waa sidaa wey. in la gaaraa waa adag tahay, asagoo kale in la helaana waa adag tahay. marka sidaa darteeda ibnulmanduur oo asagu ka hadlayey markuu carifayey alcizu khilaafu dul. casiiz qofku waay marka la leeyahay waa qofaan la dullaynin wey. dulliga cagsigeeda way cizigu markii la fiiriyo. xadiid nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ayuu nabigu caaisha weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam, hal tadriina lima kaana qowmuka rafacuu baaba alkacba. caaishay moogtahay buu qoomkaagan quraysh waxay iridda kacbada kor uga dhigeen oo meelaan qofku gaari karin uga dhigeen, ma garanaysaa buu yihi. qaalat laa, ma ogi bay tiri. nabigu marka wuxuu ku yihi qaala tacazuzan anlaa yadkulahaa ila man araaduu. kibir iyo isqaadqaadid dadka ay ku adkaynayeen darteeda, si aan qofayna iyagu doonin aanu u gelinin bay kor ugu qaadeen buu yihi. kolkaas cizada asalkeedu waxaan idhi waa xoogga iyo adkaanta iyo haalib ahaanshaha ayaa loogu maqan haddii la kor dhigo oo la yidhaahdo caza yacazu. haddii la yidhaahdo waa markii wuxuu ay adkaadaan ida ishtadda caza yacazu. wahuwa rajulun casiizun ay rajulun maniicun, nin aan la gaari karinin ama aan la qasbi karinin. laa yuqlabu walaa yuqhar, lagamana adkaado lamana qasbi karo, wixii la doono laguma qasbi karo. caza yacizu haddii la yidhaahdee lahoos dhigo caynta lahoos dhigana shaygii naadirka noqdo ayaa loogu dhaqmaa oo aan badnayn. shaygaasu casiizu ugu yahay, macnaha waa yaryaha weeyaan. casiizun qalla, shay oo naadira. shaygaasi waa qaalib, maxaa yeeley lama helo, waa macduun ayay soomaalidu yidhaahdaan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin. dhinacoodu wuu ku adag yaho wuu ku qallafsan yahay gaalada markii la fiiriyo, waana u jilicsan yaho raxmad badan buu u leeyahay mu'miniinta markii la fiiriyo. sidaasuu shaacirkii ku yidhi biidu lwujuuhi kariimatun axsaabuhum fii kulli naa'iyatin cizaazu laanufi. haddii la yidhaahdo acaza arajula, ninkii wuu quweeye weeyaan, wuu xoojiyey. wamalikun acaz. qaala alfarasdaq markuu ka hadlayay shaacirkii farasdaq samada, ina aladii samaka asamaa'a lana banaa lana baytan dacaa'imuhu acazu waatwal. sidaas ayuu ku yidhi. ilaahay samada dhisay oo kor u qaaday wuxuu noo dhisay buu guri ay tiirarkiisu dheer yihiin oy xoog badan yihiin. sharafka qofku uu leeyahay, masalada cinwaanka meesha dhallinyaradu ka soo qaateen, sharafka meesha uu ku leeyahay qofka markii la yidhaha waa casiiz ay tasharafa. sharaf buu leeyahay, waa qof maanta ma arkaysaa aan la dulaynin. ilahay qur-aankiisa marka wuxuu ku yidhi aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica. ilaahay sidaasuu suuratu nisa ku yidhi. cizada marka haddii la yidhaahdo waa xoog iyo reebitaan. munaafiqiinta markuu ilaahay la hadlayay aayadda wuxuu ku leeyahay munaafiqiintu ma waxay ka doonayaan gaalada agtooda xoog iyo quwa miyay ka raadinayaan marka ay ka dhiganayaan weli oo ay ku tiirsanayaan oo dhabarka ay cuskinayaan ayagoo ka faanaya marka ama ka fogaanaya dadka mu'miniinta ama min duuni ahli aliimaan. faina alcizata lilahi jamiica. cizada oo idil ilaahay baa iskale siduu qur-aanka ilaahay ku caddeeyey. manacada iyo nusrada ilaahay xaggiisay ka ahaatay subxaanahu wa tacaala. ilaah oo asaga aan la dullay karin ee xoog iyo quwadda asagu iskale iyo manacada.
may markaa ka samaystaan ilaahay may ka samaystaan ama mu'miniinta may ka samaystaan dhabarkooda iyo weli may ka dhigtaan si ilaahay iyaga u cizeeyo oo uga dhigo dad xoog leh oo quwadle uga dhigo. muraadka kaafiriinta markii la yidhaahdo halkan ilaahay marka uu leeyahay aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa, kaafiriinta halkan waxa weeyaan yahuud iyo nasaara iyo waxa lay wixii ayaga la halmaala oo maanta ayaga xoog bida xaggooda. muraadka cizada halkaana waxa weeye in kaalmo la siiyo iyo xoog oo markaa diinta islaamka iyo rasuulkii saxaabadii mu'miniinta ay markaa kaga xoog bataan ayagu oo dhinacaas ay ugu adkaadaan. ilaahay cizada uu iska leeyahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aankiisa uu ku caddaynayo halabada oo qofku qaalib ka noqdo oo xoog bato iyo qudrada ilaahay ayaa lagu magacaabaa arrinta ayada. cizada ilaahay baa loo tiiriyey subxaanahu wa tacaala, rasuulka ayaa loo tiiriyey, mu'miniinta ayaa loo tiiriyey, sida suuratu lmunaafiqiin soo aroortay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun. ilaahay cizadiisa subxaanahu wa tacaala waa nusradiisa ama gargaarkiisa uu gargaarayo ka gargaar helayo acdaadiisa subxaanahu wa tacaala. ilaahay gaalada asaga ayaa ka xoog badan, asaga ayaana nasri diintiisa u haya hadha jeeraale. hadday cid kasta is aruursadaan ama xoog kasta iyo shawko kasta ay isku soo dibaritaanna ilaahay cizadiisaa ka xoog badan, ilahay nusradiisaa ka xoog badan subxaanahu wa tacaala. wax alliyo waxay isu geystaan ayagoo dhabarka ay isgeystaan, hadday aalays iska dhigtaan iyo hadday isku dhabar tiirsadaan, intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala awood buu u leeyahay inuu baabi'iyo, waxna aanu ka reebin sidan ilaahay ka rajaynayo inuu maalin maalmaha ka dhigo adillaa, inuu ka dhigo ardada korkeeda. cizada dadka mu'miniinta ee rasuulku uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa inuu ilaahay diinta rasuulka uu ka kormariyay diimaha oo dhan kulligooda. maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidaas isagu ballan qaaday inuu maanta maarkaysaa diinta rasuulka ama diinta nebi maxamed diimaha inuu ka kormariyo oo maanta ay noqoto walow kufaartuba ha kahdeene inuu maanta maarkaysa huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha alkaafiruun wa fii aayatin walow kariha almushrikuun. meeshay doonaanba ha joogeen inuu ilaahay diinta nebi maxamed diimahaas ay wataan dhan kulligood ka sara mariyo, saasuu ilaahay ballan ku qaaday caza wajal. nasriga maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mu'miniinta u ballan qaaday waxa weeyaan inuu iyaga lifta ugu dambayda siiyo oo gacanta u geliyo. marka cizada ilaahay uu leeyahay waxa weeye qahriga uu qahriyo ama qasbiyo asagu waxa le wixii asaga ka soo haray. cizada rasuulka uu siiyana waxa weeye diintiisanu diimaha kaloo dhan kulligood oo ka sara mariyo. cizada mu'miniinta siiyana waxa weeye inuu nusrada iyaga u dambaydiyo guusha ugu dambayda inuu iyaga siiyo marka iyagu ahal ay u noqdaan. masaladaas marka waxay noqonaysaa dadka oo lagu tirtirsiinayo inay ilaahay ka dalbaan ciza subxaanahu wa tacaala min janaabi illaahi caza wajal, iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inay u cararaan oo asaga ay hoos galaan addoonnimadoodana ay qiraan si ay u noqdaan ahal ugu noqdaan nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo walintidaami fii jumlati cibaadihi almu'miniin. dadkaasoo ilaahay mu'miniintaahu nasriga asagu u ballan qaaday adduunyada iyo maalinta qiyaama labadaba. imaamu axmed raximahullah xadiid uu rasuulka ka warinayo wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man intasaba ilaa 9 aabaa'in kufaarin yuriidu bihim cizan wa fakran fahuwa caashiruhum fi nnaar. ninkii ku abtirsada buu yidhi 9 aabbe oo gaalo ah asagoo faan iyo ka raadinaya cizi iyo reer hebel ah asagoo ka raadinaya wuxuu ku yahay kii tobnaad buu naarta iyaga kula yahay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. xadiidkaas axmed shaakir ayaa taxqiijiyey cumdat tafsiir markuu xaqiijinaya tafsiirka asaga. haddii aan soo gaabiyo kelmadda la yidhaahdo alciz waxay ka mid tahay min asmaaءi illaahi caza wajal ayay ka mid tahay, sidau ibn lmanduur uu ku yihi alcaziizu min sifaati illaahi caza wajal wa asmaa'ihi اlxusna wamacnaahu almumtanicu falaa yaglibuhu shay. waa midkaasagu cid kasta ka sarreeya oo wax ka qaalib noqon karaa aanay jirinin. wahuwa alqawiyu algaalibu cala kuli shay laysa kamilihi shayin wahuwa samiicu albasiir. ibn اlasiir fii kitaabihi annihaaya wuxuu ku yihi huwa algaalibu alqawiyu aladi laa yuglab. waa midka qaalibkaa oo asaga aan laga qaalib noqon karin cid kastana asagu ka qaalib ah oo duleeyo.
إمام الغزالي رحمه الله في كتابه المقصد الأثنى في أسماء الله الحسنى markuu sharxayay asmaada ilaahay ee 99 ka macnaha uu ka soo qaato wuxuu ahaa العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز يعني وحو يري وكان خطير كأبو يري أو يرادو أساق أو كلاته هلتانكي baahida loo qabaana ay aad u adag tahay oo wax baahida loo qabo cid kale loo qaba aanan jirinin in la gaaro asaga ama la yaxaateeyana ay adag tahay fama lam yastami alayhi hadhihi almaani الثلاثه idha la idan kulansan saddexdaas maani lam yutlaq alayhi ism al-aziz fakam min shay'in yaqillu wujuduhu meeqa shay oo yaryahay asoo kale in la helo ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيزا هذه أنا خطر في سؤال وإنان نفع جنو أو نبضن رغم مقعابه عزيز وكم من شيء يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيز وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نذيره انتو إذلبه وحويري ما قال شيء لهلي ترى لكن أنا خطر في سبضنين nafcigiisuna aanu badnayn markii la isku soo gabagabay mesela qoraxda oo kaleeto baahida loo qaba aad ay u adag tahay nafcigeeduna waa fara badan yahay laakiin waa la gaari karaa oo in la gaaraa ma adka maxaa yeelay waa loo jeedaa bilcayl mujarrad ayaa loogu jeedaa ardada oo kale sidaas oo kaleeto nafcigeedu wuu fara badan yahay maanta waa la gaari karaa oo ixaato waa lagu samayn karaa ama waa la arki karaa maanta ma arkaysaa ayadoo kale in la helaana way adag tahay buu ku leeyahay على كل حال مركي كتاب كيسا وحاندين حولي المقصد الأثنى في أسماء الله الحسنى نكي دون يا إمام الغزالي كتاب كيسا المعز من أسماء الله عز وجل أي كمتها أيضا الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده كان سوى عزة هبيه روح دومين سكميده هبيه أسجا والعزيز من العباد هو كما يقول الغزالي من يحتاج إليه عباد الله عز وجل في أهم أمورهم عزيز وحالي مركي أدومه ودن أباهين أي أباهين أدومها إلهي أمورته ودن أي أباهين وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية آخر حياة دن إلهي أباهين سذي الدنيا حياة دن أباهين إلهي سبحانه وتعالى وذلك مما يقل لا محال وجوده ومتك وأدقي هيب ليه إن لجارا أمن لها لا أعتقع وكليته ويصعب إدراكه إن لها لا أمن لا يحاطيان ويأدكته وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم ويشاركهم في العز من ينفرد بالقرب من درجتهم في عصره انت وحاجارك ربو يري أنبياء صلوات الله وسلامهم عليه كالخلفاء والعلماء خلفاء الراشدين تأي علماء دحلين أيقوا أنبياء دحلين وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته مثل سنة عزك سوحوليه مرتبته انت أي سريسه عن سهولة النيل والمشاركة سلو جارو أيقا أما لو ذاكده وبقدر عنائه في إرشاد الخلق في سلي دكا وهنونيا طريق حقا يقصوا سنيا وقال رحمه الله تعالى من رزقه الله القناعة حتى استغنى بها عن خلقه روحي إلهي قناعته وكو أرزاقه إلى أو قد يقتوم خلقك أوردن أو قد يقتومه وأمد بالقوة والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه فقد أعزه الله في الدنيا وسيعزه في الآخرة بالتقريب إليه سيدا سيكسو وقبقبي قال الخطابي مركو كهد يعرنتا العز في كلام العربي على 3 أوجه مركي لسوق هذا كلمة دليل هذا العز oo luqad carabiya loo soo bandhigo saddex waj midkoodun bay kulmanaysaa buu yiri macnaha ugu horeeya macna al-ghalabati wal qahr in laga adkaado cid kasta ama la qasbiyo kaas waa mid weeye sidaas loo yiraahdaa kelimada carabiga markay isticmaali jireen man azza baz ay man ghalaba salab ruuxi kaaga qaar noqda ama dooda kaaga qaar noqda wax walba uu ka qaata asagu وقوله تعالى وعزني في الخطاب مركي نكي وسو داوود نبي الله داوود وعزني في الخطاب أي غلبني في النقاش
markuu ila doodayo doodii iga adkaaday ina hada lahu 99 nacjatun markuu ka hadlay waliya nacjatun waaxida macnaha kaleeto waxa weeyaan macna الشidati wاlquwati ka qowli اhudaliy yascub اlcuqaab markuu ka hadlayey bahalka la yihahdo cuqaabka xata intahaytu ilaa firaashi caziizatin sawdaaa rawtatu anfiha kalmikhtafi sidaas ayuu ku yidhi wuxuu ka yeelay bahalka oo dafada soomaalidu ay tidhaahdo wuxuu ka yeelay casiiza ayuu ka yeelay liannaha waxay ka mid tahay jawaaric waxyaalaha dayrka ahee duula midka ugu quwadda badan leh ama ugu xooga badan leh hadi jeeraale waalmacna athaalith an yakuuna bimacnaa nafaasati alqadr waxa qadriga ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin in lagu magacaabo casiiz yuqaalu minhu caza shayu ay yacizu fayutacawalu markaa waa lagu macneeya ama lagu xambaaraa macna alcasiiz calaa hada annahu laa yucaadiluhu shay shaygaa markaa leedaha waa shay casiiz ama waa qaali shay kaletoo lasoo bandhigo ama la barbar dhigaahi ma yaala macnaheeda cid kasta wuu ka qiimo batay maxaa yeelay waa naadir mar hadday wuxuu yihiinna qiimahoodu waa ka duwan yahay waxyaalaha kalayto cizat اllahi caza wajal ibn اlqayim markii uu ka hadlayey cizat allahi caza wajal wuxuu yihi ina cizaة almawlى subxaanahu mutadaminaة lihadihi اlanwaaci الsaabiqati kuliha cizada ilaahay saddexdaa nooc oo khataabi luqada xaggeeda kusoo carifay intaba way kulminaysaa buu yihi limaada aan mawduuca intaa u qaadanayo waxa aan ugu sii dheeraynayo maxaa yeelay aayadaha fahmigooda iyo axaadiista fahmigooda ayaa ku xiran in macaanidooda la caddeeyo maxaa yeeley mid walba macno ayay la xiriirsan doontaa fiima bacdu aayaadka aan sheegayo sidaa darteeda cizatu alquwa markii laga hadlayey waxa weeye buu yidhi addaallu calayha min asmaa'ihi alqawiyu almatiin midka xoogga badan leh ee adag ee aan la laabi karinin wahiya wasfuhu alcadiimu aladi laa tunsabu ilayhi quwatu lmakhluuqaati wain cadumat midka loo tiiriyo weeye buu yidhi ilaahay quwadda oo dhan asaga loo tiiriyo oo aanan loo tiirinin cid kalayto quwadda makhluuqaadka aan loo tiirin karinin inkastoo ay weynaato cizat اlimtinaac tii labaad fainahu huwa alganiyu bidaatihi ilaahay asagaa hani ah subxaanahu watacaala daatadiisa qani ayuu u yahay falaa yaxtaaju ilaa axadin ilaahay qof khalqiga ka mida ama makhluuqaadka ka miduu u baahan yahay ma jiro subxaanahu watacaala walaa yablugu alcibaadu durahu fayaduruuh addoommuhu inay dhibaan ma kari karaan oo markaa ay dhib gaarsiiyaan walaa nafcahu fayanfacuuhu ilaahay inay wax taraanna addoommuhu ma gaari karaan oo marka ay nafcigooda gaarsiiyaan bal huwa addaaru annaaficu almucطi almaanic ilaahay asagaa naafica oo maanta asagu wax anfaca dadka asaga ayaana dhiba subxaanahu watacaala asaga ayaa wax siiya isagaana wax u diida dabcan tawxiidkii sida dogsoontihiin macnaha saddexaad waxa weeye cizatu alqahri waalgalaba likulli lkaa'inaat ilaahay kaa'inaadkao dhan ama makhluuqaadka oo idil kulligood asaga ayaa ka adag asaga ayaa qasbiya wixii asaga uu doonaya ayaana ku fula subxaanahu watacaala fahiya kulluhaa maqhuuratun lilahi khaadicatun licadamatihi munqaadatun liiraadatihi ilaahay subxaanahu watacaala ayay u dullaysan yihiin meeshuu ilaahay u wajaho meelan ahayn uu u jeesan karaana ma jirto fajamiicu nawaasi almakhluuqaati biyadihi makhluuqaadka oo idil foodoodu gacanta ilaahay bay ku jirtaa subxaanahu watacaala sidoo isagu uu doono ayuun ugu tasarufaa wax dhaqaaqi kara ama tasarufi kara oo tasarufkiisa ka bixi karaa ma jiro ilaa ilaahay quwad intuu siiyey iyo xeelad intuu siiyey ayaga mogiin iyo idanku asagu u idna subxaanahu watacaala famaa shaaa allahu kaan waman lam yashaa lam yakun walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy alcadiim alcizatu fi lqur'aan marka cizada qur'aanka markii la fiiriyo ibn اljawzi markuu ka hadlay wuxuu yihi qaala bacdu اlmufasiriin alcizaةu fi اlqur'aani calى ثalaaثaةi awjuhin cizo kasta oo qur'aanka soo aroortaahay saddex midkood ayay ku timaadaa wejih axaduha alcadama weynida wa minhu qowluhu tacaalى waqaaluu bicizaةi fircawna ina lanaxnu اlgaalibuun bicadamati fircawn iyaga fircawna markaa la weynaa saxaradiisii sidaa darteed waxay yidhaahdeen bicadamati fircawna ina lanaxnu اlgaalibuun qaala ibliis markii uu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caasiyey
oo ilaahay ballan ugu qaaday inuu naarta ku rido isagii wixii raaca ilaahay buu haddana ku dhaartay wuxuu yidhi qaala fabicizatika laugwiyannahum ajmaciin cadamadaada iyo weynigaagaan ku dhaartay dhammaantood waan baadiyeyn buu khalqigaaga oo idil dabcan intuu ka soo reebay moogiye suurat saad midka labaad almanaca kii horeta alcadama u ahaa kan labaad almanaca waa alquwa sida ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilaahi jamiican munaafiqiinta markuu ka hadlay waxay doonayaan daa'iman quwo iyo xoog iyo reebitaan ayay ka raadinayeen gaalada munaafiqiintu marka sidaa darteeda waxaa qur-aanka markay soo aroortay ay faa'iideynaysaa almanaca waxa la yidhaahdo ama reebitaan ama daafac waxa la yidhaahdo ayay faa'iideynaysaa tan saddexaad ay soo aroortay sida ibnuljawsi ku tilmaamay waxa weeyaan alxamiya ama alanafa ama takaburan ay isweynaysiiyaan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu iyadana ku keenay waida qiila lahu itaqi illaaha akhadat alcizatu bilism haddii la yidhaahdo war ilaahay ka baq kor buu isu qaadaahoo anafa iyo xamiya ayaa gasho oo waa iska weynaysiiyaa xaqa markaa suurat albaqara sidii soo aroortay bal iladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaq suurat saad aayadda labaad sida soo aroortay kufaartu waxay ku sugan yihiin isqaadqaad iyo kibir bay uga sugan yihiin qur-aanka uga sugan yihiin cizadu way noqon kartaa marka ammaan wayna noqon kartaa cayd haddii ay la xiriirto ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta hadday la xiriirto cizadaasu waa cizo ammaan ah daa'iman waana baaqiyo iyada ayaa xaqiiqi ah ciza alxaqiiqiya ayaa la yidhaahdaa cizada kaafiriinta cizo lama yidhaahdo maanta isqaadqaadka isqaadqaadan ama ameerika kor isu qaadqaado ama wixii la xiriira kor isu afuufaan cizo lama yidhaahda waa tacazuz weeye qur-aankuna ilaahay ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala wa hiya fi lxaqiiqati dullun markii la fiirsana waa dulli weeyaan iyo ihaano sida qur-aanka uu caddaynayo nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam kullu cizin laysa biاllahi fahuwa dullun cizi kasta oo aan ilaahay dhinaciisa ahayni waa dulli buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sidaa darteeda aayadda qur'aan wاtakhaduu min maqaami ibrahim wاtakhaduu min duuni illahi aalihatan liyakunuu lahum cizan ilaahay subxana wa tacala suurati maryam wاtakhaduu min duuni illahi ilaahay sukadiisa waxay ka samaysteen aaliha liyakunuu lahum cizan inay cizi u ahaadaan ayaga xaqiiqatan cizi uma ahana waa dulli liyatamanacuu bihim min alcadaab inay cadaabta iskaga reebaan darteeda sheikhu sarbati ayaa tasaa'ulaad marka ka jeediyey ishkaalkaas oo kalayto wuxuu yidhi siday ku noqon kartaa cizada marna in ilaahay loo tiiriyo isagaa iskale la yidhaahdo marna mu'miniinta loo tiiriyo faina alcizata lilaahi jamiican in la yidhaahdo marna loo tiiriyo la yidhaahdo walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ishkaalkaa sidee baa loo daaweynaya hadduu asagu cizadoo dhan iska leeyahay marna rasuulka iyo lagu daray mu'miniinta sidee bay arrintaasi ishkaalkeeda loo xalinaya taa waxaa looga jawaabay inaanay isdiidaynin labada aayadood inayna isdiidaynin maxaa yeeley ciziga oo idil kulligiis oo ilaahay ou rasuulkiisa siiyey iyo mu'miniinta uu siiyey xaqiiqadiisa mulkigeeda waxaa iskale ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ilaahay mulkigeeda isagu iska leeyahay ayuu iyaga ku deeqay ou siiyey laakiin xaqiiqda ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala ilaahayna isaga ayaa abuurtay cizigaas isaga ah wa cizuhu subxaanahu wa tacaala huwa almasdaru likulli cizin ciziga ilaahayna isaga ayaa saldhig u ah ama masdar u aho meesha ka soo baxa isaga ah cizi oo idil kulligii wa min hama yakunu cizu arasuuli waalmu'miniin ciziga iyo rasuulka iyo mu'miniinta mustamadun min cizi illaahi caza wajal ciziga ilaahay ayuu la xariidaa marka ayagu miday iska leeyihin maaha waa miduu ilaahay siiyo isagu ku deeqay subxaanahu wa tacala laakiin ayagu ma aanay samaysanin faalcizu kulluhu lilah calى hada almacna ciziga oo idil marka ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala wاlcizaة alatii cinda alinsani laa takunu fadiilatan ciziga oo bani aadamka agtiisa ahaadana ma noqonayo fadiila ama shay lagu ammaano ma noqonayo ila istadallat bidili اllahi caza wajal inay ilaahay cizigiisa ay qayb ku wadato ama ay hoosaysanayso moogiyi laguma tilmaami karo ciziga bani aadamku ay wataan inuu cizi yahay mar haddaanu ilaahay la xiriirin subxaanahu wa tacaala yani ruuxii ilaahay uu cizeeyo ayaa cizada iskale ruuxu ilaahay ihaanaysana way ihaanaysan yahay markii la fiiriyo cizada kufaarta markii la fiiriyey ee qur'aanka lagu soo tilmaamay bal iladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaqin
tacazuz weeye laakiin xaqiiqada markii loo firsho waa dulli weeye liannahu waxaanu lahayn qof raadsanaya ama isagu isku dayaya inuu helo weeyaan marka waa isticaar oo kaleeto toobalcaarada wixii la dhihi jiro oo kaleeto weeye haddii dhar aadan lahayn qof aad ka soo qaadato ama dahab aanan lahayn gabar kale ka soo qaadato waa ku xaragootay xoogaa yar laakiin iyadu iskamale gadaala looga ceshanaya soo ma marka waxa weye wax alla wax ciziyo bani aadamku ay haystaan kulligood oo dhan waa icaara weeye waxay iyagu iska leeyihiin ma aha markii la fiirsho waidaa qiila lahu istaqi laha akhadat alcizatu bilism haddii la yidhaho war ilaahay ka baq waxaa qabatay kibir iyo isqaadqaad ayaa qaabta qofkii gaalka ahaa kullu dalika laysa min alcizi alxaqiiqiyi fii shay intaasoo idil ciziga ilaahay waxba kuma laha aayaadka aan sheegno iminka soo arooray markaaynu u nimaano insha allah waxaan u baahnahay qofkii waktiga ilaalinayay inuu had iyo jeer la xasuusiyo kow waxaynu nidhi alcizatu min sifaati illahi caza wajal marka waan kala qaadqaadayna insha allah maadaama ilaahay iska leeyaho alcizi kulluhu min sifaati illahi caza wajal cizadu way noqon kartaa mid lala xiriiriyay xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka markaan fiiriyey oon gadaal ugu noqday cizada waxay u qaybsan tahay inta ay la xiriirto inaan saa u kala qaado inay la xiriirto xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala marka taa aynu soo qaadno ilaahay markuu ka hadlayay nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil oo ay beytullaahi alxaram ay dhiseen oo ilaahay ay weydiiseen inuu camalkooda aqbalo oo markaa ducaysteen labadooda ku ducayseen inuu muslimiin ka dhigo oo uu ilaahay subxaanahu watacaala ka toobad aqbalo ilaahay waxay u weydiisteen inuu ilaahay ummadda ka soo saaro rasuul kitaabkii ilaahay ku dul aqriya oo bara kitaabkaasi oo xikmaddii u kordhiya oo kufrigii iyo gaalnimadii macaasida ka dahira markaa ilaahay wuxuu la xiriiriyey xikmaddiisii iyo cizigiisu isla xiriiriyey waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wmin duriyatina ummata muslimata lak waarinaa manaasikana watub calayna inaka anta atawaabu araxiim rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim intaas adaa karaya kolka cizada ilaahay iyo xikmada ilaahay oo isla xidhiidha ayay tusinaysaa ilaahay markuu dadka mu'miniintaa faray kulligood inay kufriga ka cararaan oo islaamnimada galaan oo uga digay cadaawaddii shaydaanka iyo inaanu diinta ka fidnaynin waa fidnada gaaladu maanta muslimiinta ay ku hayaan diinta ka fidnaynayaan inay ka cararaan fitnada gaalada ay ka cararaan cadowga ilaahay fidnadiisa inay ka cararaan awaluhum ibliis iyo walbashar intaba ilaahay wuxuu ku soo khatimay aayaddaasi inuu cizada ilaahay iyo xikmada isla xiriiriyo yaa ayuha aladiina aamanuu idkuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin fain zalaltum min bacdi ma jaaءatkum اlbayinaatu faaclamuu ana allaha caziizu xakiim bimacnaa aakhar haddii qofku kitaabka ilaahay ou diido oo xaqa ka soo horjeysto waa tahdiid weeyaan haddii aada leexataan markuu xaqi idin yimid oo kitaabka idin soo gaaray oo dariiqa kufriga iyo gaalnimada aada raacdaan waxaad ogaataan inuu ilaahay casiiz yahay subxaanahu watacaala oo adinka idin ciqaabi karayo xikmaddiisuna ay sidaa keenayso markuu ilaahay ka hadlayey axkaamta khamriga markuu ka hadlayey iyo maysirka iyo maanta ma arkaysaa agoonta xaalkooda markuu ilahay ka hadlayay suurati albaqara ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku soo khatimay aayaddaas yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم haddii dadku axkaamta ilaahay ay fulin waayaan oo ay ilaalin waayaan sida waxuu ilaahay reebay ay reebi waayaan waxuu ilaahay dardaarmay in loo naxariisanayo ay ku dhaqaaqi waayaan ha ogaadeen inuu ilaahay casiiz yahay ilaahay inuu xakiim yahay subxaanahu watacaala gabdhihii la furay markuu ka hadlayay qoyska axkaamta markuu ka hadlayey gabadhii maanta markaysaa la furo sharciga wuxuu ku laazimiyey inay saddex qur'i sugto saddex hayd inay sugto ayuu qur-aanka ku laazimiyey ma aha kayfiye oo ikhtiyaar ama maanta la furayaa galabtaa la guursanayaa maaha sida maanta laga caado yeeshay oo dadkii ka caado yeesheen maaha waxa weeyaan in la sugo
ama maanta ma arkaysaa axkaamta ilaahay subxana wa taala uu jideeyey lagu dhaqmo waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru'in buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala walaa yaxilu lahuna an yaktuna ma khalaqa allahu fii arxaamihin walidalika almarأaة اlmuslima waa mu'tamana ma fii raximiha wixii riximkeeda ku sugan inayna qarinin oy sheegto waa mu'tamana ayada ayuu ilaahay ammaanadaa u dhiibay marka sidaa darteed uu ku yidhi haddii ay tahay ilaahay sii rumaysanaya maalinta qiyaama oo cadaabka ilaahay ay ka baqayso wixii riximkeeda ku jira yaanay qarinin wa bucuulatuhuna axaqu birabbihina fii dalika in araaduu islaaxa walahuna midlu aladii calayhina bilmacruuf walilrijaali calayhina daraja wallaahu casiizun xakiim axkaamtaasoo idil waxay u baahan tahay sida ilaahay u soo dejiyey in la ilaaliyo hadday ilaalin waayaan oy ku dhaqaaqi waayaan ha ogaadin inuu ilaahay casiiz yahay xakiimna uu yahay fii nafsi اlwaqti ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaleeto soo arooriyey haweenka laga dhinto sidaasoo kalayto ayagana maanta wاladiina yatawafawna minkum yadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj fain kharajna falaa junaaxa calaykum fima facalna fii anfusihina bilmacruuf wallaahu casiizun xakiim axkaamtaasoo idil ilaahay sidaasuu la soo arooriyey sidoo kaleeto tawxiidka xaggiisa ilaahay wuu ku dabaxday subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim markii ilaahay oo weydiisto u yidhi ilaahu utusi sidaad waxa dhintay u soo noolayso ou ku yidhi miyaanad rumaynin ibraahiimow ilaahu waa rumeeyey buu laakiin qalbigaygaan doonaya inuu xasila buu yidhi ilaahay wuxuu u sheegay dariiqaduu ku arki lahaa aayaddaasuu ku khatima iyadana waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyaطma'ina qalbii qaala fakhud arbacata min aطayri fasurhuna ilayk uma اjcal calى kuli jabalin minhuna juz'a uma adcuhuna yaatiinaka sacya waclam ana allaha casiizun xakiim ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa ayuu u soo arooriyey markuu ilaahay ka hadlayay subxaanahu wa tacaala samaawaadkan iyo ardadan dhexdeeda inaan ilaahay waxba ka qarsoonayn aayaddaasuu ilaahay subxaana oo riximka dadka uu ku sawiray asagu cid quwaddaa heli karta ama awooddaa leh ama iraadadaa leh oon ilaahayn ma jirto subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yakfaa calayhi shayءun fi اlardi walaa fi الsama huwa aladii yusawirukum fi اlarxaami kayfa yashaa laa ilaaha ila huwa alcasiizu alxakiim buu yihi ilaahi subxaanahu wa tacaala fii suurati ali cimraan ilaahay mogii cid kaleeto oo riximka dadka ku sawiri karta ama ku abuuri kartaa ma jirto ilaahay unbaa awoodda iskale cizigaa isagaa le qudrada isagaa iska leh xikmadiisuna sidaa ayay keentay tawxiidkaasoo socda naftigeeda shahida allahu anahu laa ilaaha ila huwa wاlmalaa'ikatu waululcilmi qaa'ima bilqist laa ilaaha ila huwa alcasiizu alxakiim ilaahay sidaas ayuu soo arooriyey ayadan yani ilaahay wuxuu markhaati kacay ilahay mu ilaah kaloo xaq lagu caabuda inaanan jirin malaa'igta ilaahayna sidaas ay qireen ahlulcilmigana sidaasay qireen ayagoo cadaalo ku taagan ilaahayna waa casiiz wey subxaanahu wa tacaala waana xakiim nebiyullaahi ciisa abuuritaankiisii oo mucjizo ah markii la fiiriyo iyo nebi aadam abuuritaankiisa oo mucjizo ah aayaadkeeda markii lasoo kaxeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas ayuu ku khatimay ina masala ciisa cinda allahi kamatali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbika falaa takunana min almumtariin faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilm faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin ina hada lahuwa alqasasu alxaq wma min ilaahin ila allah waina allaha lahuwa alcasiizu alxakiim ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas ayuu ku soo khatimay markii ay u yimaadeen nasaaradii reer najraan oo nabiga ay isugu soo baxeen oo yidhi kaalaya aan habaarsanay ninkeennii ku taagan dulmiga oo nabigu faadimo la soo baxay oo xasan iyo xuseen ou sido oo calina ou la socdo halkaas ayuu ku aqriyey markuu sidaas soo baxayna gadaal bay u carareen oo may aqbalinoo waxay yidhaahdeen wallaahi wujuuh baa soo baxday haddii maanta uuna habaara aan mid naga haraynin marka gadaal bay u carareen ilahay cizzadiisa asagaa iskale subxaanahu wa tacaala xakiimna wamaa jacalahu allahu ilaa bushra maalinkii beder aayaddeeda sidaasuu ilaahay ku soo khatimay markii malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo kordhiyey maalintii gaswati badrin ilkubraa wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa lakum walitadma'ina quluubukum bih wama annasru ila min cindi illaahi alcasiizi alxakiim buu yihi ilaahi subxaanahu wa tacaala in malaa'ig lagu soo kordhiyo ayagoo yar maalinkaasi oo muslimiintu ay ka yar yihiin kufaarta 300 ay muslimiintu yihiin gaaladuna 1000 ay gaareen ciidanka ay hubka ay haystaana aan u dhigmin midka kufaarta
ilaahay malaa'ig inuu ku soo kordhiya isagaa cizadaas leh, xikmadiisuna isagay sidaa keentay. sidaasoo kaleeto waxaad arkaysaa aayaadka soo arooray markii kufaarta ay aayaadka ilaahay beeniyeen, ilaahay subxaanahu watacaala cadaabka inuu geliyo kufaarta aayaadka ilaahay beeniyeen waa siday maanta ku taagan yihiin. maanta waxay isbideen inay sarreeyaan, siday shalay isu bideen inay sarreeyaan nabiga markay la dagaalamayeen. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu alcadaab ina allaha kaana casiizan xakiima. ilaahay subxaanahu watacaala inuu hadda hilibka ka dhigo oo naarta hilib cusub u saaro oo ku xanuujiyo ku gubo quwaddaas iyo cizadaas ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala, xikmadiisuna isagay sidaa keentay. aayadaha kaleeto maanta markaysaa markii kufaarta ilaa yowmina haadaa riibada ay ku sugan yihiin iyo shakiga ay ku sugan yihiin ilaahay baa ku rigay fii qatli ciisa aw qadiyata iddicaai qatli ciisa calayhi asalaam. ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala wa qowlihim ina qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allah wama qataluuhu wama salabuuhu walaakin shubbiha lahum. ilaahay subxaanahu watacaala xikmadiisa ayaa keentay markay goosteen inay rasuulkii ilaahay dilaan, ilaahay inuu u sameeyo shabh inuu u sameeyo oo qof kaleeto lagu dul rido musawirkii nabiyullaahi ciise in qof kale lagu dul rido oo markaa ayagii ay ku qancaan waxa ay dileen inuu ciise yahay, ilaahayna ciise uu ka dhex saaro subxaanahu watacaala. shakigaana way ku sugnaanayaan ilaa ciise uu ka soo noqdo ama qiyaami saaca. wa qowlihim ina qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allah wama qataluuhu wama salabuuhu walaakin shubbiha lahum waina aladiina اkhtalafuu fiihi lafii shakin minh ma lahum bihi min cilmin ila itibaaca adan wama qataluuhu yaqiinan buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala. xaqiiqatan ma aanay dilinin, laakiin musawirkii nebi ciisa mid kaleto loogu riday, yahuuda loogu riday, sidaa darteeda kaasay dileen. bal rafacahu allahu ilayh wa kaana allahu casiizan xakiima. intaa ilaahay inuu dabiro ciisena laga qaado ayagana lagu qancisiiyey inay ciise dilaan oo shakigaa lagu rido, ilaahay baa awooddaa iskale subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala rususha markii nebi maxamed tasliyada lagu samaynayey isla suuradda nafteeda ilaahay wuu soo arooriyey aayaddaasoo waa lagu khatimay. inaa awxaynaa ilayk kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdi waawxaynaa ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaaq waciisa waayuuba wayuunusa wahaaruuna wasulaymaan waaataynaa daawuuda zabuura warusulan qad qasasnaahum calayk min qablu warusulan lam naqsushum calayka wakallama allahu muusa takliima rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusuli wakana allahu casiizan xakiima. ilahay isagaa sidaa soo jidayay subxaanahu watacaala inuu intaasoo rasula soo diro azmino kala gedisan iyo awqaad kala gedisan, adigana lagu soo diray nebi maxamed oo adiga ugu dambeeye. ilaahay cizadiisaa sidaa keentay, xikmadiisuna sidaasay keentay subxaanahu watacaala. axkaamta markii la soo arooriyey tuugga iyo tuugta in gacanta la gooyo ayuu ilaahay qur'aankiisa ku soo qariray subxaanahu watacaala. markii ay caquubadaa iyagu ay galabsadaan inaan laga leexleexanin, haddii la fuli waayena ilaahay inuu casiiz yahay subxaanahu watacaala uu ciqaabka isagu fulin karayo, xikmadna uu leeyahay. wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bima kasabaa nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim. ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo arooriyey aayaadkaas oo kaleeto markuu ka hadlayey ciise naftigiisa qadiyadiisa. waid qaala allahu ya ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanaka ma yakunu lii an aquula ma laysa lii bixaqin in kuntu qultuhu faqad calimtahu taclamu ma fii nafsii walaa aclamu ma fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub ma qultu lahum ila ma amartanii bihi an icbudu allaha rabbii warabbakum wakuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta araqiiba calayhim waanta calى kuli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaadu wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim buu yihi ilaahi subxaanahu watacaala. nabiyullaahi ciisa markuu ka beri noqday caabuditaanka ay maanta caabudayaan ay la taagan yihiin ay leeyihiin ciise waa ilaah ay la taagan yihiin, hafriyada ay la taagan yihiin, maalinta qiyaama maxkamadaasaa dhici doonta. nebi ciisena gebagabadiisa halkaas soo istaagi doona in tucadibhum fainahum cibaadu. haddaad cadaabaysid adigay addoommahaaga yihiin, haddaad cafinaysidna adiga ayaa awoodaya xikmada iskale subxaanahu watacaala. id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin.
ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati alanfaal markuu soo aroorinayay sidaasoo kaleeto ayuu soo arooriyey mu'miniinta dhibaatada markay ku sugnaayeen id istastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdafiin wma jacalahu allahu ila bushraa walitadma'ina bihi quluubukum wama annasru ila min cindi illah ina allaha casiizun xakiim buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala waktigii ay gargaarka weydiisanayeen id tastakiisuuna rabbakum waktigaad gargaarka rabbi weydiisanaysaan oo ilaahay uu idin ajiibay subxaanahu watacaala inuu idinku soo kordhiyey kun malaa'igta ka mid a oo laysu soo fangeliyey ama laysu soo raacraaciyey wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa taana ilaahay kama yeelin ilaa bishaaro moogiy iyo walitadma'ina bihi quluubukum qulubtiina inay xasiso subxaanahu watacaala wama annasru ila min cindi illah nasriga oo idin iyo gargaarka ilahay xaggiisau ka yimaada ina allaha casiizun xakiim id yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun isla suuradda nafteeda suurati alanfaal id yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun gara haaulaa'i diinuhum waman yatawakal cala allahi faina allaha casiizun xakiim ruuxii ilaahay tala saarta subxaanahu watacaala oo asaga ku tiirsada ilaahay quwo uu ku daafacana waa leeyahay subxaanahu watacaala xikmaddiisana asaga ayaa og sida ay keenayso sidoo kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala suurat alanfaal naftigeeda aayaadkii ahaa dadka in laysu keeno oo la mideeyo ummad awood ay bani aadamku awood u leeyihiin keliyata maaha awood ou ilaahay iska leeyahay subxaanahu watacaala weeyaan yani nabigeena calayhi salaatu wasalaam wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allahu huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إن صحابة سيدا الله سوى كل ميو وقلبه إذا دينت لسوقو صوتهم ويو كفر كثير لسواك لك حيو لقدقوا هل فرقاه كي لقدقوا إلهي بأود إسكال سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن تكون له أسرع حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم يعني إلهي وحوليه سبحانه وتعالى النبي وما هانين إنه أسرى سميسود دقال في وجوه الرئي بدر مركي عيد عضي حتى يدخن في الأرض إلى النبي قاسي وارضه كحرقة يو قالوا دن أو كتجميديو أو كقلجيو إنه مانتا أو سميسود وأسرى ما هانين تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أدنكنا حولا يستجيد كدونيسان إنها تقادتان تفعقيستان إلهنا آخر دونيا سبحانه وتعالى والله عزيز حكيم ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحكو بحثتين بلليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سورة محمد آية صوار ورتي وتخييرك أي إلهي سبحانه وتعالى كعفيه وإلا وحبائد كل علها أي اللقية سيدو كريتو إلا تنصروه سورة البراءة أما التوبة إلهي وحكوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي أسأل يا كير كدقي كلمة كفار تتيه وصيدة دائما كلمة مسلمين الإسلام كان أسأل كدقي تيسر ريسة دائما إلهي كلمة أسأل كدقي تيسر ريسة وكلمة الله هي العليا وهو القرآن العظيم كلمة كفار تنتيه وصيدة لي أسأل يا كدقي إلهي نحن مديس أود أوليه حبة سنة سلاسية كانتي مؤمنين تمركوا كادي ولاية كد حيدا رجي دمربة إلهي تاسو سعروري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمنين ترجع هوانك مؤمناتك قاركود قارك كليتو ولي بيهم بالله سبحانه وتعالى سببتنا وامحي معروف كأي فران منكر كان وي ريبان صلاة وي تكدان زكاة وي بحيان إلهي يا رسول سنة وي أطيعان كوا إلهي بأن حريصا دون سبحانه وتعالى محايا لي إلهي أود بولي وأن حريصا مدي سنة سلاسة أي كانيسا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي إلهي سبحانه وتعالى آيات أمركم رسول كستصدري قوم في اللقاء سهم ينبكو صادري وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم إلهي مركو الرسول صادر الرسول كسادتك مركو كلا قيبية حق أو سيدتك أيها كلا قيبية قارن مسلمين النقدان قارن كفار النقدان
ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa ayaa sidaa keentay awood buu uleeyahay kuwii adeeca inuu jannadii geeyo kuwii ku caasiyana ou naarta ku shubo subxaanahu wa tacaala liladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati mathalu الsaw walilaahi almathalu alaclaa wa huwa alcaziizu alxakiim kuwa ilaahay beeniyey subxaanahu wa tacaala oon aakhiro rumaynaynin waxay leeyihiin xaaladii xumayd ayay leeyihiin waa naartii bay leeyihiin ilaahayna matalka sare asaga ayaa iska leh ilaahay asagaa casiizahun la dullay karinin xakiimaho wax walba meesha ku habboon asagu dhiga subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muuse markii laga hadlayey iyo maanta ma arkaysaa waxyigii la siiyey id qaala muusa liahlihi inii aanastu naara saatiikum minha bikhabarin aw aatiikum bishihaabi qabasin lacalakum tasaluun falama jaءaha nuudiya an buurika man fi الnaari waman xawlaha wasubxaana allahi rabi اlcaalamiin ya muusa inahu ana allahu alcaziizu alxakiim buu ilaahi subxaanahu wa tacaala waa la soo kaxeeyey xikmadda ilaahay iyo cizadii siday keenayso isagoo hameen iska dheelmanayo oo mugdi ku sugan oo dabayl ku sugan oo qabow ku sugan oo waddadii ka hallaabay baa ilaahay siin meel uga muujiyey waa dalbuu isiri cida u tag xikmaddii ilaahay cizigiisi wuxuu keenay in waxyi halkaa loogu keeno lasoo kaxeeya asagaba ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka uu ku soo arooriyey qadaayaadkaas oo aad u faran bacda aayaati tawxiid nabiyullaahi ibraahim iyo luut markii laga hadlayey faamana lahu luutun waqaala inii muhaajirun ilaa rabbii inahu huwa alcaziizu alxakiim qofkii markii la taagdaraysto oo maanta markaysaa ilaahay uu cuskado ilaahay daafac asaga awood u leh haddii dad badan maanta ay u malaynayaan muslimiinta inay ku sugan yihiin dacfi kuma sugna muslimiintu quway ku sugan yihiin cizigay ku sugan yihiin kitaabka ilaahay bay ku sugan yihiin xadiidkii rasuulka inay qabsadaan weeyaan in la dharbaaxa way astaahilaan laakiin cizigay gacanta sare muslimiinta ayaa iskale ha u malaynina waxaa bush oo wada iyo xaaraamiyiinta la socdaa inay waxba ka qaadi karaan muslimiinta ilaahay baa ciziga siiye muslimiinta weligiisna islaamka cizi buu ahaanaya ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha muminka ardada korkeeda ku nool hadduu gabar soo harta iyadaa casiiza ardada korkeeda wax dullay karana ma laha hadday 100 goor la ciqaabo iyo hadday 100 goor wax loo geysto qofka muslimkaa cizigiisa xabad looma geysan karo waa ilaa inuu noqdo asagu sucluuq aan waxba kala garanayn mogi ciziga ilaahay baa iskale ilaahay asagaa qariray subxaanahu wa tacaala ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha alcizzatu lilahi walirasuulihi walilmu'miniin nabiyullaahi luut markii la ihaanaystay oo kufaartii ay ihaanaysteen ilahay buu dhabarkiisa cuskiyey subxaanahu wa tacaala faamana lahu luut nabiyullaahi ibraahim ayaan oran lahaa wa qaala inii muhaajirun ilaa rabbii markii ay isugu tageen qoomkiisii namruud iyo waxay markay isugu tageen oo maanta ardu baabil laga soo eriyey oo la iskugu dayey in dabka lagu rido oo dabkii uu ka soo baxay meesha la gaarsiiyey nabiyullaahi ibraahim cid la gaarsiiye ma laha miyuu isdhiibay nabiyullahi ibrahim dab baa lagu riday miyuu isdhiibay nabiyullahi ibraahim may marka mu'minku inuu isdhiibo weligiis ma aha mu'minku waa shaamikha ra'si weeyaan waa casiiz weeyaan mahmaa loo geysta haddii banaan loo jaro ximin haddii loo jaro mu'minku casiiz wey daa'iman maxaa yeele ilaahay baa siiye subxaanahu wa tacaala inuu yidhahdo mu'min baan aho cizada ilaahay baan qayb ku leeyahay inuu yidhaahdo iyo inuu dulloobo surka hoos u raariciyo wax keeni kara maaha qofkii ka carar lahaa diinta ha ka cararo qofkii raba inuu ciziga ilaahay la tago maalinta ila qiyaamo horta ilaahayna diintiisa inuu ku dhego weeyaan hadduu rag yahay dumar yahaba maaha garka iska xiir maaha xijaabka iska dhig maaha maanta surka hoos u raarici laa muslimku waa casiiz weeye cid aan ka yeelaynina ma laha haddii si kasta la yeelana wallahi inaanan ka yeelaynin haddii barqadii lay tooganay wallahi inaanan ka yeelaynin hadday yidhaahdaan inta xayaatada ka hartay ciqaaban kuwan wallahi inaanan ka yeelinayo billahi yatullah marka kitaabka ilaahay uu nasiye subxaanahu wa tacaala wa inahu lakitaabun caziiz laa yatihi albaatil min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid buu ilahi subxaanahu wa tacaala marka dad badanoo maanta ku dhacay dacfi oo ku dhacay yaa ikhwaani imtixaan weeyaan imtixaanka marka hadduu yimaado qofka muslimkaahi waa inuu soo istaago yidhaahdo ana lah anigaa iskale anaa iskale imtixaanka anaa iskale diinta in darteed la ii ciqaaba anaa iskale inaan iska hor nimaano ku dhinto kitaabka ilaahay oo haddii maanta gaalada ku jirto makama laga cararaya maya in laga carara maa hadday gaaladu maanta yimaadaan kitaabka hadda maanta ay beenta ka sheegayaan qur-aan ay soo saareen ay leeyihiin waxba ka jirin oo munxarifa isaga dhan ba muslimiintu ma ka aamusayaan maya wallahi in laga aamuso maa waxa weeyaan qofka muslimkaa diinta inuu kusii dhego weeye diinta inuu ku dhego weeye maalin walba dada ay soo galo yidhahda islaamka saatan loola dagaalamaya diinta xaqaheeda jirto keliyata weeyaan dadaa soo gala gaalo ahaa ayaa soo galay marka ilaahay diinta wuu quweyn subxaana isaga quweeye subxaana wa tacaala qofka mu'minkaa diinta haysaana ardada korkeeda kan casiiska keliyata ku nool asaga weeyaan maaha in laga cararo nabiyullaahi ibraahim markii dabka loo shiday oo dabkii lagu tuuray
oo ilaahay subxaanahu watacaala cizigiisa isagu uu ku badbaadiyey iyo quwaddiisa uu ku badbaadiyey isagu subxaanahu watacaala muxuu yidhi inii daahibun ilaa rabbii inii muhaajirun ilaa rabbii sidaa ayuu soo istaagay nabiyullaahi ibraahim inii muhaajirun ilaa rabbii inahu huwa alcaziizu alxakiim haddii cizada ilaahay ay wax ku tari weydo cizo gaalada waxba kuma tarayso gaal aan cizo lahayn cizo haddaad ka raadiso waxa weeye halaag weeyaan waxaan marka daa'iman doonaya waxa weye mawduuca ujeeddadiisu waxa weeyaan maanta xaggaynu kaga sugannahay adduunka oo dildaantood hadday takaalub ay nagu sameeyeen bayna qawsayn waxa weeyaan annaga ayaa iska leh annagaa keennay dulliga maanta aynu ku suganna annagaa isu keennay nabiguna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wa uxibu mawduuc kaleetoo taas aan ahayn maanta inaan gallo runtii xadiidkii maanta ma arkaysaa sawbaan ee ibnu casaakir oo sunankiisa ku wariyey abu daawuudna sunankiisa oo ku wariyey bisanadin saxiix muxuu yihi yuushiku an tatadaaca calaykum alumam kama tatadaaca alakalatu calaa qascatiha qaaluu amin qilati naxnu yowmaidin ya rasuula allah qaala la bal antum yowmaidin kasiir walaakinakum gusaa'un ka gusaa'i sayl walayanzicana allahu min suduuri acdaa'ikum almahaabata minkum walayaqdifana allahu fii quluubikum alwahn qaaluu wama alwahnu ya rasuula allah qaala xubu dunya wa karaahiyat lmowt musiibad aan annaga aan naga imaanin maanta gaaladu naguma haya wallahi inayna nagu haynin yacni wax allaala wax maanta ay noo geysan karaan oo gaal kuu geysan karaan ma jiro ilaa dacfiga dadka muslimiinta ayagu iyo ka cararka diintooda ka carareen moogi wax kale soo haysa ma jiro maxaa yeelay maanta inay noqdaan gusaaka gusaai telo bilyan lagu tiiriyo laakiin aanay dhammaan intii qalcaana ka qaada aanay goyn karnin maxaa keenay waxaa keenay dacfiga kitaabkooda ay ka carareen ka fogaadeen maxaa yeelay nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam walayanzicana allahu min suduuri acdaa'ikum almahaabata ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka siibi doonaa cadowgiina qulubtooda wuu ka siibi doonaa haybada idinka haybaysanayan wuu ka siibi doonaa qulubtiina adinkana waxaa lagu ridi doonaa wahan baa lagu ridi doonaa bui qaaluu wama alwahnu ya rasuula allah muxuu yaha wahn qaala xubu dunya wa karaahiyat lmowt adduunye jacayl iyo mowtka carar ayaa idiin geysanaya wa ilaa hadday muslimiinta soo istaagaan kulligood doonayaan yani gazwatu uxud ma ilowni ya ikhwaan amut ma ilowni ma ilowni wa hada mawduucun aakhar wallahi inaana gelaynin hadeertaan wallahi inaana gelaynin hadeertaan in maantayta dadka muslimiintaha ay cararaan oo diintooda ka cararaan oo ay sidaa soo istaagaan maxaa keenay maantayto waxaa keenay leannahu rasuulkii baan khilaafnay rasuulkii baan khilaafnay markaasaan leenahay muslimiin baana muslimiin ma nihin been baan sheegayna yaan beenta la sheegi ma nihin muslimiin ma nihin fiican rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinka uxud markii ay ku soo hartay 9 nin ku soo hartay 9 ay ku soo hartay oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay ka tageen rumaadii makaan ka tageen wuu la dhuuman kara naftiisa wuu la dhuuman kara laakiin waa diiday ayuha almuslimuun ilaya haluma ilay waa laga cararay meeshii o dhan 9kii la socday 2 ku soo hartay Sa'd bin Abi Waqqaas iyo waxaa ku soo haray maanta markaysaa Talha ibn Ubaydillah ayaa ku soo haray 9kii kale leebka diray iyagoo isu wada dhigay away wadadkii shala tagay Ummu Umaara away gabdhihii shala dagaalamay away oo rasuulka isu dhigay away diintii baa laga cararay maanta diinta laguma tagaan diinta kuma imaanin maanta markaysaa dhar sarafa kuma imaanin sariiro kuma imaanin dahab kuma imaanin diinta waxay ku timid maanta in ciziga ilaahay la cusbay ku timid nabiga wixii qabsadaba ha qabsadeen maanta uxud ilaahay buu khuduucay subxaanahu watacaala kama dhaqaaqin goobtii uxud asagoo salaadii ku tukanon ducaysanan rabbigiisa baryan kama teginin din kale in lagu duugo goobtii kama teginin jannowku dhammaantood u wada barti qaada iyaga iyo dadkii ay ka tageenba intaba wax alla wixii uxud ku dhintay war diinta islaamku masaasaad moodeen maantayso la waxa cizi darada maantana annaga ka timid ee kama imaanin cid kaleta kama imaanin diinta islaamka cizigeeda way leedahay ilaahay baa siiyey subxaanahu watacaala ilaa ardada qiyaamuhu ka kacana ayada casiiz ahaan doonta ayada diinta keliya jirta ahaan doonta ayada iyo ardada korkeeda sugnaan doonta laa ya ayuha alikhwa diinta ina ka cararna maaha maxay tahay sidaan oo kaleeto maxay tahay qof walba inuu ka siigto sidii yatasallaluun waa maxay tasallulkan waa maxay la wallahi hada imtixaanu wanaxnu naxtaaj ila hada alimtixaan war diinta islaamka saad moodeen ma aha diinta islaamka saad moodeen ma aha diinta islaamku waxa weeyaan
قال كلا تاجر لما كان الغرب تقوم تدريها الغرب ثمان ثلاث تاجر ما هذا ما لين إنسان والله كلا بحيا إنك عرلا يعرف حتى تاجر الغرب شو قارناش العزة مقترنة برحمة الله عز وجل. اجدد إلهي وحول حرير رحمته جل جلاله. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقال آيات إلى 8 آيات يو إلهي كحته سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وحدها أستقع يو لحريرني أرهنتاس. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى آيات كاسورة خصوصا صادري آياتها أنت كسر ما توادقرن إيسان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن بدن أمان تماركيسا رسوش اليدي إلى نبي الله موسى كسر بالله إلى نبي محمد لغو ختم عليه الصلاة والسلام. إلهي وحكسوا ختمي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قربك أفارع بوير إلهي سبحانه وتعالى دفت المؤمنين تنبي محمد وإن حريصه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. حتى يكون عاصيا وحتى هذا وحا سمينة بريبا كأيمان تيت. وتوكل على العزيز الرحيم. إلهي الرحيم كعزيز كأها سبحانه وتعالى تلساره نبي محمد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. dad badan waxay raadinayaan nasriga gaalay ka raadinayaan gaal hadaa ka raadinayso inuu naxariis ku siiyo kuma siinayo kamana rabna gaala inuu naxariis na siiyo. alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى أسقى سيدا في سورة الجبين إلهي ينصر من يشاء. إلهي أسقى يوقر عدي أو دونيه محايا لأسقى عزيزة ولد الله كريم رحيم بعباده المستحقين برحمته عز وجل. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. بيقول الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. إلهي أسقى إنت سود به سبحانه وتعالى. العزة مقترنة بقوة الله عز وجل. عزة أو لحرس إلهي تاتي عز وجل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay markii uu yimid amriga markuu halaagii uu yimid najaynaa saalixan qoomkii reer tamuud markuu halaagii ilaahay u yimid inuu nabi saalex ilaahay badbaadiyey iyo kuwa mu'miniinta la jiray wamaa yudriika bari inuu ilahay salka u fakiyo gaalada oo idil kulligood ilahay dhulka inuu la gooyo awood buu u leeyahay subxaanahu watacaala wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilahay kuma adka subxaanahu watacaala inuu tuufaan iyo balaayo ku sallido awood buu u leeyahay subxaanahu watacaala kolka laakiin waa in dadka mu'miniinta la ogaadaa inay kala baxaan oo mu'minka dhabkaahi soo hara wey inta ilaahay nasrigiisa xaqa ule inay soo haraan waay alif laam mim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi saalix iyo qoomkii mu'miniinta ahaa waanu badbaadinay gaaladiina waanu dhammaynay buu yihi ilaahay subxaanahu watacaala ina rabbaka huwa alqawiyu alcasiiz ilaahay sidaasoo kaleeto ayuu ku caddeeyey qur'aankiisa ku soo caddeeyey ilaahay suurati alxaj ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wahada huwa dulmi korka naga saaray kii nebi maxamed lagu bilaabay baa weli dusha naga saaray markii muslimiinta ay cizi heleen oo ay ilaahay diinta ku quweeyey ayay iyagu gadaal u noqdeen oo dacfi markay xayaatada raadiyeen bay dacfigi gadaal markaasaa dulmigii gaalada gadaal ugu soo noqday udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquluu rabbuna allah walowlaa dafcu allahi annaasa bacduhum bibacd lahudima sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smu allahi kaiira haddeera la jejebinaya masaajida america lagu jejebinaya canada lagu jejebinaya yuruba lagu jejebinaya meel kastaa masaajida ilaahay lagu baabi'inaya oo lagu damiraya meel kastaa marka qofkii diin haysto dhan dhammaantood laga dhigaya taxta dakdi la gelinaya iyo dulmi aanan weligii arkin oonan maqlinin inta hadda aniga ay soo martay aanan arkin oonan maqlinin intana lala sugayaana hadday iyagu awood u helaan way kasii badan tahay yudkaru fiiha smu allahi kaiira walayansuranna allahu man yansuru wahada wacdu min allahi caza wajal walayansuranna allahu man yansuru ruuxii ilahay u gargaaray ilahay waa u gargaari laakiin haddii diinta laga cararo ilahay subxana wa tacala cadowga waa nagu sii sallidi wayna sii eryanayaan wayna sii dulaysanayaan wayna sii baabi'inayaan laakiin haddaynu soo istaagno oo aynu noqonno inaan doonayn dhimasho keliyata ilahay nasri buuna siin subxaanahu watacaala ina allaha laqawiyun casiiz ilahay asaga ayaa xoog leh subxaanahu watacaala asaga ayaana cizada iska leh sharafka asagaa iska leh cid hallay kartana ma laha annagoo mu'miniina haddii ilaahay awood buu leey nuna siiye cizigiisa waana na siiye subxaanahu watacaala laakiin annagaa iska dhiibnoo niri ma rabna ciziga ilaahay saasuu noogu soo salliday jala jalaaluh ma qadaru llaha xaqa qadri ina allaha laqawiyun casiiz ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku caddeeyey inay suurat maanta xaj ilaahay inayna qadarinin xaqiisii inayna qadarinin ilaahayna subxaanahu watacala waa mid awood u saaxiiba cizigana isagu iska leh aayadahaas iyo wixii lamidahoo kaleo fara badan waktiga waan soo gaabay maadaama waktiga gu yar yahay alcizatu muqtarinat bilcilm ilaahay cizadiisa wuxuu la xariiriyey cilmiga ayuu la xariiriyey ina allaha faaliqu alxabi waannawa yukhriju alxaya min almeyt wayukhriju almeyta min alxay dalikum allahu faannaa tu'fakuun فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إلهي سبحانه وتعالى وحوليه أسجع أيات دنبلي صبحا همين كان أسجع كذا كي لقو حصله والرحرة يضيع أنا أسجع كذا كي وحلقو حساب صده إلهي نتاسوا أودي تأثير تقدير كي عزيز كاها عليم كاها سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه إلهي أسجع يا كالسار سبحانه وتعالى حكم فيسه يحكم ديسه وهو العزيز العليم إلهي مد غالبا سبحانه وتعالى علمنا بدن وحول ما شوهبنا سقول لك وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa ka dhigay shamsada sii soconaysa meeshuu ilaahay ugu talagalay taasina waa ilaahay taqdiirtiisii casiiska ahaa ee caliimka ahaa subxaanahu watacaala xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alcaliim ilahay asaga kitaabkan qur'aankaa soo dejiyey
allihii cajiizka ahaa ee haddana cilmiga isaga u saaxiibka ahaa. daban suurati qaafir ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu kaleeto ku cadaynay faqadaahuna 7 samaawaati fii yowmayni waawxaa fii kuli samaaءin amraha wazayana الsamaaء addunya bimasaabiixa waxifظa dalika taqdiiru اlcaziizi اlcaliim ayuu ilahay fii suurati fusilat kusoo dejiyey subxaanahu watacaala. samaawaadkan abuuritaankooda iyo maanta ardada samayntooda markii laga hadlayey ardadan sugitaankeeda iyo samaawaadka sugitaankooda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku soo qadimay inuu awoodda isagu leeyahay inuu ku sameeyo samaawaadkan iyo ardadan 6 ayaam inuu ku sameeyo. dabcan ilahay qur-aanka ayuu ku soo sugay subxaanahu watacaala qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yowmayni watajcaluuna lahu andaada dalika rabu اlcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fawqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii 4 ayaamin sawaan liلsaa'iliin ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إلهي سبحانه وتعالى أودت أن يقول لي إنه سماوات كان يأرضان قبل أسقو مدلح مع المقدر قوضو كلا كسمايو أود أسقع إسكاله علم جيدا أسقع يا إسكاله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا ترى السماوات يرضى يا سمي قال لي وحيقيريا الله عزيزه عليم إنه سمي سبحانه وتعالى. العزة مقترنة بالانتقام أرجوسك أو إلهي عزتي سؤال حريري سبحانه وتعالى قرآن. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إلهي أسقع يا أسكاله عزة يا أرجوتنا أسقع صاحبه سبحانه وتعالى. sidoo kaleeto fii suurati almaa'ida ilahay sidaasuu ku soo khatimay subxaanahu watacaala cafa allahu cama salaf waman caada fayantaqimu allahu minh wallahu casiizun du intiqaam. alcizatu muqtarinatu bilmaqfira ilahay wuxuu la xariiriyey dembi dhaafka subxaanahu watacaala. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ilaahi subxaanahu watacaala waa mid casiiz ah oo haddana dembi dhaaf asaga u saaxiiba. markuu ka soo hadlay yani khalqiga kala gedisana asaga u abuuray subxaanahu watacaala addoomaha ilaahay ka baqa oo maanta iyagu ka baqaay kuwa ugu cilmiga leh ayaa ilaahay ka baqa buu yihi subxaanahu watacaala inama yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. qul inamaa ana mundiru wamaa min ilaahin ila allahu alwaaxidu alqahaar rabu الsamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu algafaar. ilaahay wuxuu soo arooriyey subxaanahu watacaala allihii samaawaadkan iyo ardada abuuray asagu iyo wuxuu u dhexeeyey inuu yahay alla casiiza subxaanahu watacaala oo haddana dembi dhaafid badanoo dadku hadday dembi ka galaan dembi dhaafna ay weydiistaan asagu awood u leh inuu siiyo dembi dhaafkaas. khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq yukawiru alleyla cala annahaari wayukawiru annahaara cala alleyl wasakhara ashamsa waalqamar kullun yajrii liajalin musamaa alaa huwa alcasiizu algafaar. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahayga samaawaadka abuuray oo ardada abuuro xaqnimada ku abuuray hamiinkii maalintana isdhex geliyey sidaad iminkaba u jeedaan wayukawiru annahaara cala alleyl wasakhara ashamsa waalqamar dayaxa iyo qoraxdana dadkii u sakhiray asagu kullun yajrii liajalin musamaa mid walba waktigii loogu talagalay ayuu soconayaa alaa huwa alcasiizu algafaar. ويا قوم ما لي أدعوكم ninkii maanta nabiyullaahi muuse fircawn qoomkiisa la doodaya mu'minka ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. sidaas ayuu soo arooriya isagana. العزة مقترنة بالحمد ilaahay wuxuu la xariiriyey mahadcelinta ilaahay loo mahadcelinayo subxaanahu watacaala daa'iما ilaahay waana casiiz waana xamiid subxaanahu watacaala. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلهي أسقى كتاب كان سود جي dadka in looga saaro mugdiyaalka ay ku sugan yihiin
iftiinka xaqaana loogu bixiyo ilaahay idankiisa subxaanahu wa tacaala dariiqa casiiska allaha casiiska xamiidkaana dadka loo hogaamiyo oo loo wado. alcizatu muqtarinatu bilhiba, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo xusay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wahaab yahay oo asagu cizadana iska leeyahay, wahaabna asagu ou yahay. unzila calayhi dikru min baynina, kufaartii waxay yidhahdeen nebi maxamed miyaa annaga dhexdayada laga doorto kitaabkii lagu soo dejiyey? bal hum fii shakin min dikrii bal lamaa yaduuquu cadaab. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala dikrigayga shaki bay daa'iman kaga sugan yihiin, cadaabkaygana weli may dhadhaminin. am cindahum khazaa'inu raxmati rabbika alcasiizi alwahaab, mase iyaga agtooda waxaa ahaaday khazaa'inta allihii maanta ma arkaysa casiiska ah ee wahaabka ahaa miyaa khasnadihiisu agtooda ahaadeen. alcizatu muqtarinatu biljabaruut, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu asagu jabbaar yahay ayuu la xiriiriyey. huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduusu asalaamu almu'minu almuhayminu alcaziizu aljabbaaru almutakabir buu ilahi subxaanahu wa tacaala. ilaahay waa casiiz, ilaahay waana jabbaar subxaanahu wa tacaala. alcizatu muqtarin min allahi caza wajal, cizada ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay. qul illaahumma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa wtucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir. ilaahow adiga ayaa maalikii samadan mulkigeeda adiga iska leh. mulkiga waa siisaa qofkaad adigu doonto, mulkigana waad ka siisaa qofka adigu doonto. qofkaad doonto waad cizaydaa, qofkaad doontona waa dullaydaa. khayrka oo idina adigu gacantaada ku sugnaaday, inaka calaa kulli shayin qadiir. alcizatu lilahi subxaanahu wa tacaala. bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إلهي بأسكال العزة أويدر سبحانه وتعالى. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. عزة أويدر إلهي بأسكاله مركا ما أنت دعاية دود النبي محمد يعني وحقوقي سنين ما أنت دعاية وابدانتا يعني ما أنت مركيسا ضيق صدري بكوكو سمينين قال بي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني منك مؤمن كوحوي هدف كيسي مسج كيس وكاويا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النقطة إلهي سيدو أقول حري صبر كأي حمد يستسبح سوى حري بالقرآن كالنقطة أدياب كان عجيب كإله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. waan ognahay inuu xabadku kula ciriiri noqonayo oo adiga dhan oo kugu dhacayo daqdi aad u fara badan, dicaayada ay kugu hayaan iyo carabkooda ay kugu hayaan, waa midda meediyaha ku hayaan maanta, jaraa'idka ay ku hayaan maanta, afka labada ay la taagan yihiin, xarb iclaamiya ay maanta wadaan. fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin. ilaahay ku tasbixso oo ilaahay hus, ilaahay u sujuud subxaanahu wa tacaala, ilaahay ku dhowow baa la leeyahy wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. rabbigaaga caabud intii xaqiiqdu kaaga imaanayso maanta saacadaada dhimashada ay ka imaan doonto. walaa yaxzunka qawluhum, hadalkoodii iyo maanta oraahdoodii ay ku murug gelinin. ninka muminka ama gabadha muminada maaha inuu gaalka maanta cayda iyo aflagaadanka uu la taagan yahay inay diintiisa naqsi ka gelida ama dacfi ka gelida maaha. inuu isu qaatay inuu yahay mid dulaysan maantaysa maaha, maya ma aha. cadaab lagugu imtixaanaya taa inuu qofka muminka yidhaahdo weeyaan, waaba midii qur-aanku sheego ilaahay sheega weeyaan. inuu cizi ka qaado ayaa la doonayey. marka ilahay wuxuu leeyahay ina alcizata lilahi jamiica man kana yuriidu alcizata faina alcizata jamiica falilahi alcizatu jamiica. ruuxii doonaya ciza ilahay bay cizada oo idin u sugnaatay. ilayhi yascadu alkalimu اطayib wاlcamalu الصaalixu yarfacuhu wاladiina yamkuruuna الsayi'aati lahum cadaabu shadiidu wamakru ulaa'ika huwa yabur buu yihi ilahi subxaanahu wa tacaala. فرعون إبليس مالك يوم أنتم إلهي كعاسي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني ذاتك أنت ذيك ما أنت عيان لمن بويري وأن طريق حقا كلهم من أنت عديك كويسة المبين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عزة إلهي يا رسول كيس مؤمنين كإسكاله. يقولون لئن رجعنا إلى غزوة بني المصطلق مركي نبقى وكسر نقض عليه الصلاة والسلام. وطريقة مري عبد الله بن أبي سلول أنت لسوا استاجي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بالله سبحانه وتعالى.
cizada ilaahay baa iskale rasuulkiisaa iskale mu'miniinta ayaa iskale kolka waa inuu qofka mu'minkaa ogaadaa maadaama ilaahay cizadiisii qayb kamida oo wato inaanu marnaba daliil ahayn waa inuu ogaado weeyaan cizo xaqiiqiya isagaa iskale alcizatu bimacna ashidati walmashaqa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum rasuulka wuxuu ku dhibtoonayaa baa la yidhi wixii dhibaho idinka idin soo gaara rasuulku waa ka xanuunsanaya waa ku dhibtoonaya xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim alcizatu bimacna ashidati walghilba ilaahi subxaanahu watacala sidaas ayuu qur-aanka soo arooriyey ya ayuha suurati maa'ida ya ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diini fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illah walaa yakhaafuuna lawmata laa'im marka acizatin cala alkaafiriin bimacna ashidati walghilba alcizatu fii sifati alqur'aani binafasati alqadr ayay ku timid iyadana qur'aanka wainahu lakitaabun casiizun ilahay qur'aanka sidaasuu ku magacaabay inta kaleeto ka soo hartay ee ku saabsan maanta ma arkaysaa halabada iyo manacada iyo maanta ma arkaysaa waxyaalahi kale loogu isticmaalo iyo axaadiista soo aroortay oo aan nidhi maanta waan kaga hadli doonaa axaadiista dib aan u dhigi doonaa maadaama waktiga uu dhammaaday 24 xadiis oo aan rabay inaan kaga hadlo waxba ugama dari karo marka haddaan wakti kale u helno alcizatu fi axaadiisi rasuul ayaan mar kale ka hadli doonaa ilahay hadduu waktiga noogu sugo subxaanahu watacaala faa'iidada keliya oo aan ka qaadan karno cizada qofku inuu ilaahay u dhowaado subxaanahu watacaala wixii nasriina isaga oo weydiisto ilaahayna subxaana watacala daa'iman isaga sharafka uu siiyo qofka muminka inuu ogaado wey intaasaan kusoo gebagabaynayaa mawduucan ku saabsan maanta waxa aan rabaa inaan maanta la wadaago oo aan dadka ku gubaabiyo waxa weeyaan aayada aan aqrino kitaabka aan ka aqrinaahi haddaan qofku fahmin ku dhaqmo waxba badan makarayaan hadal afka laga yiri moo noqonaya laakiin waxaan rabaa qofka cizada inay lafaha ka gashiyo dhiig cizatu diin inuu qofka lafaha iyo dhiigga ka gashay ayaan doonaya waa maxay macnaheedu yani waxa weeyaan haddii jirkiisa la yidhaha waa la googoyn qofka ilaa islaamka inaad ka baxda mogeyn diida weeyaan uu yidhahdo may diinta ardada korkeeda ee saxiixay jirta maanta waa islaamka weeyaan cizana ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala qayb uu iga siiyey subxaanahu watacaala mana ka tegaayo ilaahay inaan la hortagaa cizadaas anoo wata moogiyo qofka muminkaasaan ka doonaya taa way rag iyo dumarba inaad ogaataan waxa gaal oo dhan gaal ardada korkeeda joogo dhan ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama buudista ha noqdo ama siikh ha noqdo ama hindoos ha noqdo ama cifriid kale ha noqdo ama budhayse ha noqdo wax alle iyo waxa gaal ardada korkeeda joogo dhan kulligood waa isku dhinac weeye islaamkii dhinac ka yihiin le ayagoo xooggaa qabo nin kastaaba uu maanta maalka haystaan iyo hubka haystaan uu ka badaya muslimiinta maxay uga baqaya lannu cizada ilahay baa meesha ku jirta subxaanahu watacaala cizada ilahay baa meesha ku jirta markay ku arkaan yani haddaan kawtar baan soo istaagay ma intii hal qof ii imaan lahaaba 9 gees iga soo istaagay oo maxaan haystaa waxba ma haystay lawaan haystaa laakiin anaan ujeedin inaan haystay laakiin waan haystaa islaamkan haysta laakiin anaan ujeedin inaan haysto xoogga rucbiga ku dhacaya anigu uma jeedo laakiin iyagaa ujeeda argagaxa haysta iyagaa ujeeda anigu uma jeedo qofka muminka inuu ogaado weeye alcizatu lilahi walirasuulih walilmuminiin qofka muminka marka waxaan ka rabaa haddaad shaqaynayso iyo haddaad arday tahay iyo haddaad maanta markaysaa dariiq maraysid diinta islaamka inaad muctazi ku noqoto casiiz ku noqoto maana marna ha ka tegin dacfiyo ku geli maxaa yeelay waa imtixaan aayadaheeda insha allahu tacaala waan arki doonaa sida iskula xariirta waan arki doonaa marka qofka muminka ahi inuu ka tago daa'iman la dooni maayo yaan ciziga laga tegin ciziga yaan laga tegin jawlo yar baan ku samayn doonaa haddaan wakti u helo ghaswatu uxud nabiga misaal xayi a weeyaan ciza fi ddiin misaalun xay wixii ku dhacay saxaabada oo qaarkood xataa ay damceen inay cabdullahi ibnu ubay ibnu salool inay weydiistaan inuu wasaato u sameeyo abu sufyaan oo ka fujiyo markii le nabigi waa la dilay iyo siday arrinta isu bedeshay baan rabaa inaan kaga sheekeeyo siday xataa saxaabadu u kala baxeen maalinkaa xoogaa yar bay u bahantay qofku inuu ag istaago marka insha allahu tacaala wakti kale kaa noo ahaato wabillahi tawfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed
جزا الله شيخنا الفاضل عن محاضرته القيمة. إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريا الشيخ محمد رشاد محاضرة قيمك وآذنه بالشيء ونوسو جيدي إنك نكون مغلاه ولي أقوى نقاطه إلهي سبحانه وتعالى هنا كذب ولا ليال waxaan u gudbaynaa waqtiga intaynoo ka hartay oo aada u yar inaan idin soo gudbiyo su-aalihii aada soo qorateen. waxaan ka xumahay inaan idin iraahdo su-aalo aada u badan ayaa ilaa iyo shalay iska soo daba dhacaya oo ku saabsan dhinaca qoyska, nolosha qoyska. ugu yaraan ilaa 100 su-aalood su-aalo ku dhow baa arrintaa ku saabsan. waxaan marka idin ogeysiinaynaa dadkiina aada u soo celceliyey oo ka cabsi qaba inay fursadaasi seegto inay jirto muxaadaro ku saabsan khilaafka qoyska iyo mashaakilkiisa oo waqti dheer aanu u qorsheynay oo uu qaadan doono sheekh yuusuf axmed insha allah, iyo nadwo ku saabsana waa khaas u noqon doonta laga yaabee dhinaca arrimaha qoyska haddii ay taasi suurtagal noqoto. aanu gudbo su-aalaha qeybta ka hartay. sheekh su-aasha koowaad halkana ku haya waxay leedahay, gaaladii waxay dhaheen haddii aada shaqo rabtaan xijaabka iska dhiga ama iska fududeeya. marka waxaad ka odhan lahayd iyadoo ay jiraan gabdho badan oo arintaa ku kadsoomay, isla su-aashaasi mid u dhiganta ama u dhow ayaa waxay leedahay, walaal waxaan rabaa in wadanka la ii sheego miyaa la naqasay iyadii xijaabka, miyaa la naqasay aayadihii xijaabka mise wadaadadii ayaa ka gaabiyey xijaabka iyo wixii lamid ah, maadaama aan arkayo gabdhihii oo arintaas si gaara ayaantaan uga sii baxaya. labadaas su-aalood oo dabcan isleeyahay way su macno dhow yihiin. sheekh waan kugu soo dhaweynaya marka hore falitafadal. jawaab ma iga rabtaa arrintaas? ya idinkaan weydiina xaqiiqatan jawaab ma iga rabtaa arrintaasi mise igama rabto? marka lama fahmin waa waxaan ka hadlayay. marka maadaama aan la fahmin marka waa iskaga celinaya. qadiyadda ku saabsan xijaabkii, qofka muslimka ahi diinta islaamku waxay leedahay aahaar bay leedahay. awalan xijaabka iyo salaada iyo soomku waa isku darajo weyn. xijaabka iyo salaada iyo soomka waa isku darajo weyn. bal soomku sanadkii hal mar u yimaada, laakiin xijaabkii salaadu waa isku mid. sida aad u tukanaysid saacad kasta ka bacdi ama saacada ka bacdi baad u tukanaysaa, xijaabkan qofka muslimka mulzam uu ugu yahay gabadha. qur-aankiisana ilaahay sidaas uu ku daweynay fi suurati nuur iyo maanta fi suurati alaxzaab aayadda 59 ilaahay sidaas uu ku cadeeyey subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha الnabiy qul liazwaajika wabanaatika wanisaaءi اlmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn buu yihi ilahi subxaanahu wa tacaala. suurati nuur aayadda 31 sidaasoo kale ilahay ku qaydi subxaanahu wa tacaala, waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha waliyadribna bikhumurihina cala juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihin aw aabaa'ihina aw aabaa'i bucuulatihina aw abnaa'ihina aw abnaa'i bucuulatihin ila aakhirka aayadda. lama nasakin ilaa intuu ilaahay ardada ka dhaxlay iyo wixii korkeeda ahaatana sidaasi waajib u tahay. marka gabadhii ka baxda xijaabka ka tagtaahi ha ogaato ilaahay inay ku caasiday, ha ogaato ilaahay cisyaankiisa hadday u bareeri karto dee iyaday jirtataa. marka xijaabku waa waajib wey. waxyaalaha qofka la rabo inuu la dhinto iimaankiisay ka mid tahay, waxyaalaha caqaa'idkay ka mid tahay, caqiida waayo, waa masala sharciya weeyaan. marka qofku waxyaalaha la rabo inuu ku dhego oo ku dhinto la doonayay ka mid tahay, maaha khiyaar, maaha masale khiyaariye maaha. lama nasakhinin, cid takhfiifi kartaana ma jirto. yani waa inaad ogaataan yaa musharica, yaa musharic, yaa wax jideeya ilaahay. ilaahay baa isagu musharicahu wax jideeyey subxaanahu wa tacaala. sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa sharciga dejiyey, bani aadamku sharciga ma dejiyo.
sharciga bani aadamku ay dejiyaan hadduu ilaahay sharcigiisa khilaafo wax kasoo qaad ma laha waa tuurid wey. wax alla wixii la xaaraaninayay iyo wixii la xaaraantinimaynayay ilaahay qur'aankiisu ku caddeeyey. walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi alkadib fii suurati الnaxl. kolka waxa weeyaan xijaabka ilaahay baa waajibiyey sow salaadii ugu waajibiye ugu waajibay gabadha muslimadda. shuruud buu leeyahay culimmada u taxeen. marka waxaan jeclahay yani marar badan baan ka hadlay in la heli karo ayaan rajaynayaa. 4 cajaladood intay ugu yarta ayaan ka sameeyey mawduuca sidaan filayo. marka lama fududaynin lamana bedelin. daruura sharciyana maaha in la yidhaha waa daruura sharciya keentay maaha. waxa weye qofka muslimka waa muslim weeye aynamaa kaan. inuu qofka muslimka ay weydiisto ilaahay inuu islaamka ku dilo iimaankana ku soo bixiyo saasuu nabigana faray calayhi salaatu wasalaam. marka ciddii tiraahdo xijaabka iska dhiga ama casriga qaasa diinta islaamku buu qofkii ka siibay mahe waxba kaleeto uma tarin. amarkii ilaahay ayuu yiri ku caasi qofkii ayuu faray hadduu wadaad yahay iyo hadduuna wadaad ahayn toona. marka masaladaas halkaasaan ku joojina haddii aan fahmay. su-aasha ku xigtahay inkastoo aan filay iyaduna jawaabteedu inay waadix tahay muxaadaradana laga dhadhansanayay ama laga arkayey si cad. haddii aan sii tilmaamo inkastoo iyadoo a dhowr qof ay soo qoreen sheekow dadka yagan jooga wadamada tangaalada ma hayno sifada cisada. waxaan nahay kuwo ku nool cabsi iyo isdhudhuub dhinaca gaalada ah. sidaasi waxay noqotay inaanu diintii iyo xaqiiqadii islaamkaba aan uga ran sheegi weyno. marka arrintaasi sow dulliga laftigiisa ma aha saanse wax uga bedelaa. ilahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyay subxaana watacaala liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin. suurat alanfaal waa suura badriya weeye saa ogsoontihiin. qofku inuu diintiisa ka leexleexdo maya maya. ilahay diintan wuu quweyey subxaana watacaala wuuna faafiyey. alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum falaa takshawhum buu yihi ilahi subxaana watacaala. suuraddii ugu dambeeyey qur-aanka soo degtoo tashriiciga ahayd suurat almaa'ida. alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum falaa takshawhum buu yihi marka ilahay wakshawna. war maanta diinkiini gaaladu waa ka quusteen inay ardada ka tirtiraan way ka quusteen anaa sugay. ha ka baqinina ayaga ee aniga iga baqa buu yihi ilahi subxana watacaala. aayaddaa keliya haddaan fahmaan oo gabdhaha ay fahmaan ama dadka muslimiinta ay fahmaan arrintaa waa waadix weeye. war gaaladu diintiinii maanta inay dhulka ka tirtiraan way ka quusteen. alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum. maanta way ka quusteen laga bilaabo diinkiina way ka quusteenoo waa darba gooyihiina waa kalaam faadi buu yihi ilahi subxaanahu watacaala. hadday kol sidaa tahay falaa takshawhum war gaalka ha ka baqin. diinkaa wax ku saabsan gaalka ha uga baqin. gaalka dha waa tukanayaa waa tukadaa anugu waa tukanayaa. xijaabkaaga ha uga tegin haddaad gabar tahay. haddaad nintood qamiis wadatay qamiiskaaga ha uga tegin. haddaad gar lahayd garkaaga ha iska xiirin. haddaad shaqaynaysay shaqadaada salaada ha uga tegin. ha uga tegin. waa inaad tidhaahdaa maxaa su dhudhuubaya. war meesha muslimaan ahay muslimnimaan ku soo galay bilaahi calaykum. qola hadday isdhudhuubaydo qola iska dhudhuub badan miyay jireen reer kosofo iyo reer bosnia qola iska dhudhuub badan ma jireen. ya qola diinta ka dhuumo og oo iska qari og miyay jireen reer bosnia iyo reer kosofo. fi taarikh maya ma jirin. xataa diinta waxa ay tahay magac mogi waxba kale kalama soconin iyaga. khamrigay cabbi jireen naagahay iska wadteen salaadiisan tuka jirinin soomayna soomi jirinin. keliyata waxaa loo yaqaanay inuu awowgiisii ahaa ama magaca aabbihi inuu tusinaya inuu muslim yahay qaarkood. siyaa loo dilay. waa ku faka waayeen middaa. waa ku faka waayeen xataa iyagoo raacay oo yidhaahdeen dhaqan han ay iyaga oga mid yihiin ayay ku faka waayeen middaasoo lagu dilay. haddii marka lagugu dilaayo wuxuu yihi marka mid bosniyan haddii laygu diinta waxaan bilaabo u yihi barashadeeda kadib markii bosnia nalalaayay ka bacdi maxaa dhacay. oo haddii diin la-aanba diintii aanan aqoonin laygu dilay anoo aqaana maa lay dilayo marka.
anoon diintii aqoon haddii lay dilay oo diintii darteed laygu dilay hadda anoo aqaan in lay dilaa fiican buy waa saxiix wey waxa weeyaan qofka muslimkaahi diintiisa inuu ku faano ciddigiisa ka mid tahay shacaa'irtu waxay ka mid tahay diinta ka mid tahay shaqada ha uga tegin tacliintaada ha uga tegin diinta wax alla waxaa tahay noloshaada muslim ahaaw maxaa yeelay qofka muslimkaahi adduunka dadka joogo dhan waa ka duwan muslim inuu yahay uga duwan yahay muslimnimada miyaad ka tegaysaa marka haddaad xataa ka tagto oo qofka haddar uu ka taga xataa aabihii iyo hooyadii iyo hadday muslimiin yihiin laga yeeli maayo muslimkii waa ka taga xataa laga yeeli maayo